سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaa ammaan iyo mahad gaar ah leh Allah subxaanahu wa tacaala oo maantay halkan isugu keenay gudoomiyaha golaha shacabka mudane aadan maxamed nuur aadan madoobe, gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi, ra'iisul wasaaraha xamse cabdi barre, ra'iisul wasaare ku-xigeenkii mahdi guuleed iyo dhammaan marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay madashan xilli wareejinta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan ku faraxsanahay in hayaankii doorashada ee muddo dheer soo socday maanta gabagabadiisii iyo dhammaystirkii hay-adihii dowladda aan goobjoog u nahay gabagabadoodii, maadaama mas-uuliyadda dalka iyo nidaamka dimuqraadiyaddu ay tahay qor isku dhiib. waxaan runtii ku faraxsanahay in aan soo dhoweeyo kuna wareejiyo xilka ra-iisul wasaare jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre. waxaan hubaa in ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu u gudan doono mas-uuliyaddiisa si hufan oo dalka iyo dadka soomaaliyeed ku diirsadan hadduu alla subxaanahu wa tacaala idmo. waxaan mahadnaq ballaaran u gudbinayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii fursad ii siiyey inaan dalka iyo dadka soomaaliyeed u adeego muddo ku dhow 2 sannadood. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, golahayga wasiirada, ciidamada qalabka sida, howlwadeennada xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo shaqaalaha hay-adaha dowladda iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed taageeradii iyo dhiirigelintii ay goor kasta ila garab joogeen muddadii aan waddanka u soo adeegayay. waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa golahayga wasiirada oo runtii muujiyey dhabar adeyg iyo dulqaad xilliyadii adkaa ee uu dalku soo maray, kuna guulaysteen in ay waajibaadkooda shaqo ee ay u hayeen shacabka soomaaliyeed u guteen si hufan oo sharaf ku dheehan tahay. sababtoo ah hadday caqabada ila imaan lahaayeen hawsha aan dalku u hayay siiba doorashada ma aysan hirgeleen. waxaa kaloo mudan in aan xuso mahadcelin ballaaran u jeediyo guddiyadii doorashooyinka ee heerarka kala duwan lahaa, dadaalkii iyo dulqaadkii ay muujiyeen xilligii lagu guda jiray doorashada, taasoo keentay in doorashooyinka dalka si nabad ah ay ku soo idlaadaan. xafiiska ra-iisul wasaaraha, golaha wasiirada iyo dhammaan hay-adaha kale ee dowladda wuxuu waajibaadkoodu koowaad ahaa muddadii aan ra-iisul wasaaraha ahaa hagidda iyo hirgelinta doorashada dalka si nabad ah ugu qabsoonta. runtii inkastoo caqabado iyo khilaafaad siyaasadeed yimaadeen, haddana allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu guulaysiiyey in aan ka gudubno marxaladihii adkaa, xaqiijinana doorasho dalka ka dhacdo iyo isbeddel si nabad ah ku yimaado, taasoo suuragelisay xilwareejinta aan maanta u fadhino. sidoo kale xukuumaddeedu waxay ku guulaysatay in ay joogtayso adeega bulshada iyo dib u habeynta hay-adaha dowladda ee socday, sida dayn cafiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha dowladda. barnaamijka xukuumaddeeda waxaa aasaas u ahaa geedi socodka iyo hufnaanta dowladnimada. xukuumaddaydu waxay diiradda saartay howlaha muhiimka u ah geedi socodka dowladnimada sida sugidda amniga, xoojinta dimuqraadiyadda, qabashada doorashada si nabad ah ku qabsoonta, horumarinta dhaqaalaha iyo ballaarinta adeegyada bulshada. waxay sidoo kale xoogga saartay wax ka qabashada iyo gurmadka xaaladaha abaaraha saameynta ay ku yeesheen dadka iyo dunyada soomaaliyeed. waxaan ku kalsoonahay oo aan ku boorinayaa dhammaan howlwadeennada xafiiska ra-iisul wasaaraha in ay gacmo furan ku soo dhoweeyaan, si mug lehna ula shaqeeyaan ra-iisul wasaare
xamse cabdi barre iyo golihiisa wasiirada uu magacaabi doono. waxaan kaloo ka codsanayaa dhammaan xubnaha golaha wasiirada in ay u diyaar garoobaan xil wareejinta wasaaradahooda iyo soo dhoweynta wasiirada cusub. ugu dambeyn waxaan u rajaynayaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed amni waara, xasilooni siyaasadeed iyo horumar nololeed. waxaan diyaar aniga ka shakhsi ahaan u ahay guubaabinta, talasiinta iyo la shaqaynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre. waxaan rajaynayaa in ay ku guuleysan doonaan mas-uuliyadda baaxadda weyn ee loo igmaday, horena u sii wadi doonaan geedi socodka dowladnimada Soomaaliyeed. waxaan jeclaan lahaa in aan halkan kula dardaarmo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, dowladda cusub in ay si aad ah ula shaqeeyaan, loona ilaaliyo, loona kobciyo. waxaan leeyahay dowladda cusub waa inay kobcisaa dimuqraadiyadda iyo xorriyadda si aysan ugu imaanin habacsanaan iyo ambad. waxaan ka codsanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xasan cabdi barre in baaritaan lagu sameeyo, ay ogaadaan dibandaabyooyinkii ku yimid doorashooyinka dalka iyo badqabkii dimuqraadiyadda iyo xorriyadda muwaadiniinta, si aysan mar kale u dhicin ku tagrifal awoodeed iyo damac shakhsiyadeed ee lid ku ah hanaanka geedi socodka dowladnimada iyo dastuurka dalka. waxaan kaloo jeclaan lahaa in aan halkan sida walaalkay wasiirka diinta oo waqaafka uu sheegay Cumar Rooble, in aan halkan uga jeediyo shacabka Soomaaliyeed hal dardaaran oo muhiim ah. dalkeenna waxaa ku soo badanaya dhaqamo xun oo aad iyo aad u liita, haddana ku sii fidaya, sida dad sheeganaya darajooyin ay ixtiraamka shacabka Soomaaliyeed u hayaan sida shiikh iyo aqoon-yahan. dhaqankan waa in ashqaas loo arko dad macquul ah ay caadaystaan in ay sameeyaan been abuur iyo dacaayado, iyadoo carabkooda iyo qalinkoodu noqday wax la ijaarto oo hadba qofkii ama kooxdii dan gaar lihi ay kiraysato. waana wax ceeb ah, dhaqankeenana ku cusub, wax saxna maahan, waana in laga waantoobaa. marka dhammaan waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, dadka waa inay la hadlaan, haddii qofkii sheekh sheeganaya, haddii uu aqoon-yahan sheeganayaba. sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in aan yeelano dulqaad iyo adkaysi. qof kasta oo siyaasadda looga guulaysto waxaa habboon in uu sugto waqti kale, balse aanu maciin bidin waxyaabihii aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay. ugu dambeyn waxaan si niyad ah idinkaga codsanayaa inaad si hagar la-aana ula shaqaysaan ra'iisul wasaaraheena cusub mudane xamse cabdi barre si uu u guto waajibaadka qaran. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan howlwadeennada xafiiska ra'iisul wasaaraha, cid kasta oo ka soo shaqaysay maanta meesha aan fadhino munaasabadan oo igu horeeyo BS-ka iyo xogeeyaha joogtada iyo xogeeyaha joogta ku-xigeenka walaashay. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. waxaan rabaa haddana inaan ku soo dhoweeyo ra'iisul wasaaraha cusub. aad iyo aad u mahadsan tahay ra'iisul wasaaraha